Assalaamu calaykum daawadayaal. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Maanta waxaan idin sharaxi doonaa filim aad u xiiso badan oo soo baxay sanadka 2017. Bilowga filimka waxaan arkaynaa nin la dhahayo Ondrej oo soo baxay si uu uga toolaab si u dabaaldegaan dhalashada wiilkiisa. Markii uu dhammaystay, waxaa bilaabay inuu sugo sedigisa oo la dhahayo Rodolf. Markii uu Rodolf imaaday, Ondrej wuxuu sheegay inay daayeen, saas darteed naagtiisa oo la dhahayo Alex way ku canaaqi doontaa isagii. Ondrej wuxuu Rodolf weydiiyey haddii uu ka maqnaay. Rodolf wuxuu u jawaabay inuu aaday saaxiibtiisa si ay waqti fiican wada qaataan. Wuxuuna Ondrej u sheegay inuu naagtiisa u sheego inay wada aadeen meel, balse Ondrej wuxuu weydiiyey sababtaas naagtiisa u khiyaamayo. Wuxuuna ugu daray inuu marraba naagtiisa khiyaami doonin. Rodolf markii uu tani maqlay, wuxuu ku qoslay isagii. Wuxuuna u sheegay inuu arkay nin sidiisii ah oo sheegayo inuu ku jiro ereyd wanaagsan, balse ugu dambeyn uu khiyaamay naagtiisa. Wuxuuna Ondrej u sheegay inuu waqtiga yar yahay, saas awgeed waxaa loo baahan yahay inuu ku raaxaysto noloshiisa. Markay xaafadda imaadeen, Alex waxay ninkeeda weydiisay haddii uu ku maqnaay. Markii uu bilaabay inuu wax u sharaxo, Alex waxay ka tagtay agka. Rodolf markii uu imaaday, waxaa soo dhaweeyay naagtiisa la dhahayo Martha. Iyaduna waxay weydiisay haddii uu ka maqnaay. Rodolf wuxuu u jawaabay inuu ku soo daayo isbitaal oo la soo booqday saaxiibkiisa. Markay xafladda dhalashada dhammaatay, Alex waxay ninkeeda u sheegtay inay carruur dhala rabaan, saas darteed waxay ku khasbanaatay inay wada saxdaan. Markay hawsha bilaabeen, Alex wuxuu dareemay dhabar xanuun. Maalinta u egtay, Rodolf iyo Ondrej waxay ku soo baxeen xaafadda si ay wada sheekaystaan. Amar oo ku sheekaysanaya, waxay arkeen gabar oo wiilkii Ondrej ka qaadanayso gaarigiisa oo isku ciyaarayay. Rodolf wuxuu wiilkeeda u sheegay inuu ka qaato gaarigiisa ilaa wuxuu yahay wiil. Wiilkii ayna u tuuray gabadhii, taasi oo ku sababtay inay dhulku dhacdo. Gabadhii hooyadeeda waxay bilowday inay fuudayso Rodolf, iyadoo u sheegayso inuu gabdhaha si la dhaqmo. Markay cidda ku soo laabanayeen, Ondrej wuxuu Rodolf u sheegay inuu dhabarkiisa xanuunayo ilaa wuxuu haween walba la saacda naagtiisa. Intaas kadib, Ondrej wuxuu Rodolf weydiiyey siduu galmada habeen walba u sameeyo ilaa wuxuu yahay nin duf ah. Rodolfna wuxuu Ondrej u sheegay inuu la seexanaynin naagtiisa, balse shaqaasada gabdhaha yaryar. Wuxuuna la sameeyay jecel oobka. Markii uu Ondrej imaaday maqaayadoodii, wuxuu naagtiisa u sheegay inay habeen iyo maalin shaqaynayaan, balse wax fiican ma karinayaan. Markay macaamiisha u yimaadeen, wuxuuna dalbaday cuntadiisa ugu fiican. Wuxuu oobka u sheegay inay maqaayad kale iska aadaan. Habeenkii markii la daray, Ondrej wuxuu aaday baarkan si uu ula dheelo Rodolf. Markii uu Rodolf imaaday, Ondrej wuxuu ka codsaday inay ciyaaraan, balse Rodolf ayaa u sheegay inuu halkan u keenay si uu gabar u baro. Oo ka hadlayo, waxaa imaaday gabar fara badan. Waxayna imaaday oo ayna salaamtay Rodolf. Rodolf wuxuu iyada baray Ondrej, waxayna weydiisay inuu yahay qofkii dhabarka xanuunayay. Waxaan ogaanaynaa inay gabadhan la ceel yahay sababta. Intaas kadib, Rodolf wuxuu Ondrej u sheegay inuu noloshiisa ku raaxaysto. Waxaasna ugu daray sababtay xaaskiisu dareemayso caajisnimo ay tahay, inuu isaga yahay qof caajis badan. Ondrej wuxuu isaga weydiiyey inuu u sheegayo inuu gabadhiisa khiyaamo, balse Rodolf ayaa u sheegay inay dhulka badbaadinayso. Markii uu tani maqlay, Ondrej wuxuu go'aansaday inuu Rodolf la joogo oo ku daawanayo sababta ay ciyaarayso. Iyadoo ciyaarayso, sababta waxay sheegtay inay timaheeda dhibayso, saas darteed waxay iska beesay pantideedii oo ayna ku ciyaartay timaheeda. Waxayna bilowday inay ciyaarto, ayagoo Ondrej iyo Rodolf ay daawanayeen iyada. Intaas kadib, waxay ka soo baxeen baarkii. Rodolf wuxuu weydiiyey inay rabto inay xaafaddeeda la geeyo. Wuxuuna ka codsaday inuu Ondrej geeyo xaafaddeeda. Markii uu Ondrej soo laabtay, wuxuu sheegay inuu qandhada hayso. Wuxuu ka qaaday qalab isagoo u malaynaya inay tahay thermometer, balse wuxuu arkay inay tahay qalabkii lagu tijaabinayo uurka. Xaaskiisuna waxay u sheegtay inay uur weli qaadin. Intaas kadib, waxay aadeen daftar si ay u soo fiiriyaan inuu Ondrej yahay bakrin ah, balse waxay arkeen inuu daftarka joogin. Intaas kadib, sababta waxay imaatay maqaayadiisa, waxayna u sheegtay inuu cunto u kariyo. Wuxuu bilaabay inuu iyada cunto u sameeyo. Waxayna aadeen gurigeeda oo ayna sameeyeen jacayl. Markii uu xaafadda imaaday, Alex waxay weydiisay haddii uu aaday. Wuxuuna u sheegay inuu wadada ku arkay saaxiibkiisa oo ayna muddo dheer wada sheekaysteen. Markii uu musqusha aaday, Alex waxay jaakadkiisa ku aragtay pantidiisa Rodolf. Waxayna aaday isagii iyadoo wadata maqas. Ondrejna wuxuu u sheegay inuu Rodolf iska lahay
Alex waxay u sheegtay hooyadeeda oo Robert ku soo meesay guriga. Idna waxay u diiday inuu gurigeeda imaado. Maalinta ugu xigtay, Robert wuxuu quantity waxay leedahay roota. Waxayna weydiisay inuu gurigooda burburay. Balse uu sheegay inuu weli wada joogaan. Intaas kadib, Robert wuxuu waaday suuqa. Asna maagtiisa u soo baday boorso. Intaas kadib, wuxuu bilaabay inuu sariirteeda u kordhiyo. Markay maada gashatay boorsadii, ayna u soo socotay agga guriga. Waxaa ku dhuftay gaariga. Haddana ayay ku dhimatay. Robert markii uu tani maqlay, wuxuu ka murugooday midaasi. Dhinaca kale, Andrej wuxuu bilaabay inuu marba markasii dambeyso aado sarloota. Waxayna jecel sameeyaan. Maalin ayagoo jecel sameynayo, gaariga wuxuu ku dhuftay geed. Taasi oo ku sababtay inuu gaarigiisa jabo. Wuxuuna been u sheegay naagtiisa. Andrej wuxuu bilaabay inuu shaqadiisa si fiican u qabto. Waxayna bilaabay inay macaamiil fiican helaan. Maalin wuxuu qabtay naagtiisa. Waxayna sameeyeen jecel. Alex waxay Rodolf u sheegtay inuu ninkeeda isbedelay. Asna shaqada si fiican u qabanayo. Rodolf wuxuu ogaay inuu Andrej fiicanayo iyada. Rodolf wuxuu la kulmay Andrej, oona u sheegay inuu fiicano naagtiisa mar kale. Habeenkaasi, Andrej waxaa soo wacay sarloota. Intaas kadib waxaa u imaatay isagii. Dhinaca kale, Alex waxay keentay hadiyad si ay u dabaaldegaan ciidan. Muuqaalka waxaan arkaynaa sarloota oo aadii Alex. Waxayna u sheegtay inay shaqo rabto. Alexna waxay u sheegtay inay aabaheeda saacidayso. Maalin Andrej wuxuu arkay sarloota oo joogta guriga Rodolf. Markii uu weydiiyey sababta ay u imaatay, waxay u sheegtay inay sabab loon rabto. Waxayna furtay daaqadda. Waxayna bilowday inay jecel la samayso isagii. Maalin Rodolf wuxuu hayay qabuubka naafkiisa. Wuxuuna arkay inuu qof keenayo oo wax. Markii uu xaafadda imaaday, wuxuu arkay inuu naagtiisa fiicamaysay. Markii uu raadiyay ninkii, wuxuu arkay inuu leeyahay. Ninkiina wuxuu u sheegay inuu weligiisa la socday naagtiisa. Inaantani waxaan arkaynaa inay Andrej naagtiisa ay isaga fiicanayso. Waxayna ninkii shaqaalaha u sheegtay inay rabto inay eerkan istaajiso. Habeenkii Andrej markii uu sarloota la cashaynayay, waxaa imaaday naagtiisa Alex. Waxaasna bilaabay inuu ka dhoolto naagtiisa si aan loo arkin. Alex waxay bilowday inay sarloota la sheegtiisato. Sarlootana waxay u sheegtay inay u fanto. Andrej wuxuu u lugeeyay si uu la kulmo Rodolf. Waxaasna Rodolf ka codsaday inuu caawiyo isagii. Rodolfna wuxuu aaday sarloota oona u sheegay inuu isaga yahay aabaha xanuunka. Intaas kadib, Andrej wuxuu naagtiisa u dhigay xafladda. Idna waxay u sheegtay inay u qabto. Dhammaadka filimka waxaan arkaynaa Andrej oo hayo sawirka ilmihiisa. Wuxuuna mahadgeliyay Rodolf oo badbaadiyay isagii. Filimkeena xagga ayuu ku dhamaanayaa. Walaal like ha ilaawin. Sanid.